maxamed waqtiga qaaliga ee aad nasiisay waa kaaga mahad celinaynaa goob joogna waan kugu soo dhaweynaynaa waxaad noo sharaxdaa cudurkan corona ee ka dilaacay markii si hore dalka China kuna fid hadda wadamo kale oo dariska laha iyo maaragtay Yurub noo faahfaahin cudurkan waxa uu yahay inkastoo aad ku nooshahay wadan daris la ah maaragtay dalka China Nepal oo laftirkiisana saameynta cudurkan uu gaaray noo faahfaahin cudurkan sida uu yahay runtii aad weyn aan kaaga mahad celinayaa waana ku dhawahay goobjoog haddii aan ka bixiyo faahfaahin xaaladda guud ee xilligan Nepal runtii xaaladdu waa mid aad iyo aad u kacsan oo walwal fara badan ka jirto caasimadda waddanka Nepal ee Kathmandu waxaana soo gaaray xanuunkii ka dilaacay waddanka dariska la ah ee Shiinaha xanuunku hadda waa mid dadka inta dawladdu ay xaqiijisay ilaa 2 qofood ayaa u dhimatay weerarna ilaa dad gaaraya 200 waa dad laga ku jira goobaha caafimaadka oo laga jeegareynayo xanuunka sidaa darteed waxaan Soomaalida halkan ku suganna waa dad hadda aad iyo aad cabsi ugu jira maadaama ay tahay meeshu meel aan dalkoodii ahayn runtii dawladdu waxay digniin ay ka soo saartay inay la cuno hilbaha oo ay sida dadka cuna hilbaha shimbiraha ay haddana waxay ku sii dartay hilbaha xoolaha oo ay tiri inaan la cunin xoolaha sida lo'doo kale jikinkoo kale adigu waxyaalo badan sida arigoo kale waxyaalahaas oo dhan inay ay dawladdu ay tiri ugana digtay dadka in ay sina aysan u isticmaalin oo ay sheegeen in cudurka hadda laga helayo ama uu ka imaan karo xoolaha hilbaha xoolaha waa gartay marka saameynta cudurkan uu ku dhaxyeeshay bulshada dalka Nepal ku nool waa sidee wallahi saameyntu waa mid aad iyo aad u ballaaran maxaa yeelay dalkan waxa dadka ku nool oo populationkiisu waa dad ilaa 30 milyan gaaraya waxa ku sii darsan 30 milyan dad oo dalxiisayaal aad iyo aad u fara badan ayaa dalkan imaada runtii dalkan ma ahan dal inta badan asagu wuxuu ku fiican yahay waa danka dalxiisayaasha ma lahan wax bada waana dal u dhaxeeya labada wadan ee waaweyn ee Hindiya iyo Shiinaha wadankuna waa wadan inta badan aan ahayn wadan aan dhaqaale badan lahayn oo xaaladiisu ay tahay mid iska sabool ah dadku wadanka u dhashana waxay dareemayaan aad iyo aad u fogan oo dadka dhamaantood waxa ay inta badan ay sameeyaan inay biyaha ay joogaan halka kuwa kalena xirtaan afka ay maskarada ay xirtaan maxamed cudurkan waa cudur si degdeg ah ku faafa tariya markii uu Shiinaha ka dilaacay cudurkan wuxuu gaaray wadamo daris la ah marka laga soo tago wadamada dhaca qaaradda Asia wuxuu gaaray wadamada dhaca qaaradda Yurub iyo America marka dalka aad ku nooshahay Nepal ee dariska la ah Shiinaha sidee dawladdiisu maaragtay ugu diyaar garowday cudurkan haddii ay jirto dad laga helo sidee ula tacaamushaa dawladda والله هذا الدولة سي آدي وجد شيء إن أي دتك أي وجدت قدركي إن أي دتك أي وشك قدرك مركي وقفه سكدر سيدا وعذرك ووحي شيئين وسيدا هرجب كوكلة إنه قفكي والدنيا أي حنون هرجب كوكلة مع حنون سيدا أديك الحمد قفكي إنه دريمه مركي الدولة وحي شيء إلا يعذر عن قفك مدة 2 maalmood hadii uu cudurkaas ku dhaco saddex goobaha caafimaad oo qofkaas 2 maalmood uu ku sugnaado gurigiisa in uu geeriyo karto lahayn wax ka qaban ahaantii xaaladdu waa mid hadda ay dawladdu 100% way diyaar garowday waxayna dadka ay dhamaantood u soo jeedinaysaa dhammaan wacyigelin ah in ay xaaladan ka dignaadaan qofkii dareema xanuun حمدنا إن أو هوري كتب جوابها عاصمات كذي.
goobaha caafimaadka ee dalka Nepal ku yaala si qaas ah ma ugu diyaar garoobeen oo qalabkii ma haystaan maaragtay dadka soo galootiga ah iyo dadka baxaya lagu ogaan lahaa haddii ay dhacdo in qof dalka ku nool cudurkii laga helo waqti maaragtay ugu horeysa uu dareemasa uu dawladda la soo wadaago maxay dawladdu u sameynaysaa in awood ma u leedahay in ay maaragtay xadido ama ay badbaadiso bukaankaas والله دولته waxay hadda diyaar u tahay inay dadkeeda ay badbaadiso maadaama iyadu dalka ay mas'uul ka tahay inay boqolkiiba boqol hadda waxay dalka ay gelisay fooljignaan aad iyo aad u xoogan dawladdu waxay hadda ay ku dadaalaysaa in dadka cudurka laga helay ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ula tacaamusho oo dadkaas ay noqdaan dad naftooda la badbaadiyo dawladdu waxyaalaha kale hadda ay waxay sheegtay in dadka loo sameyn doono isbitaallo teeda kalena ay laboorka ay ka sameynayso inuu qofka markuu laboorka dadka ka soo degaya in lagu sameeyo check up isku markiiba la jeegareeyo qofkan xaaladiisa maxaa yeelay qofka xanuunka keenay wadankan wuxuu ka soo laabtay caasimadda xanuunka ka dilaacay ee dalka Shiinaha waana arday u dhashay isla wadanka حاجر محمد عذرو سida midkan oo kale si degdeg ah ku faafa inta badan dhacdo in la xadidi waayo dawadiisana ay sahlanaawiso marka cudurkan markii si aad ah loo fiiriyay wadanka aad ku nooshahay bulshada ku nool iyo khibrada caafimaad degan maxay ka yiraahdaan cudurkan waa cudur sidee ah ay leeyihiin والله عذر كان مركي لفيريي انت بدن حدا waxa la isku raacsan cudur kan inuu yahay mid aan hore loo arkin hase ahaatee ay dawladdu ay tahay mid ay taxadir ay ka muujinayso badqabka dadkeeda oona ah inay isbitaallo ay dadkii si degdeg ah ugu samayso mase cudurkan ayaa inta badan la sheegaa inuu markii hore ay ka imaaday sida aan wadanka dariska nala ah ee Shiinaha dadka hore u cuni jiray hilbaha sida bahalaha shibiraha sida Soomaalidu u taqaan kibili oo kale iyo sida masaska oo kale inuu cudurkan markii hore uu ka yimid mase haddana cudurkan uu yahay mid hawada lagu kala qaado oo ah mid inta badan qofku intuu xanuunka markuu uu ku cusub yahay ma ahan mid oo hore uu ka fahmi karo inuu isla xanuunka u hayo base xanuunkan ayaa wuxuu yahay mid qofkii asagoo haya haddana ku faafi kara goobaha bulshada sida inuu meelaha laga raaco basaska laga raaco basaskii dhexdooda maqaayadihii hoteeladii macnaha qofka asagoo isku markii ma ahan xanuunkan mid qofka hore ka soo ridaya mase waa xanuun qofka ilaa iyo marka ugu dambayso oo tamarto ay ka dhamaato qofka oo dareemayo inuu xanuunkan hayo oo xanuunkan uu soo ridan madaha sida weyn cudurkan lagu aqoon karo maxaa kamid ah wallahi calaamadaha kullayba hadda inta ay dawladdu sheegtay waa calaamadaha sida inuu qofkii uu xanuunka uu sida u qabanayo madax xanuunka kale macnaha waa wax sida hergebka kale adiga ku qabanayo waa sida hergebka kale qofkii wax u qabanaya oo macnaha qofkii uu ka dareemayo madax xanuun oo dareemayo lafa xanuun oo dareemayo adigu qandho oo dareemayo mase qandhadaas ma ahan qandho isku markii hore uu qofka uu ka dareemayo mase waa qandho ilaa qofkii asagoo qofka hore uga dhaco isku markii hore kama fahmi karo mase maalmo ka bacdi ayaa waxa la fahmayaa qofkan xanuunka haya inuu yahay bahalkii cudurkaas uu yahay mase dawladduna waxa ay sheegtay ama ay digniinteeda ku jirtay inuu qofka oo hore oo ka tago goobta caafimaad ugu dhow si loo ogaado qofkan xaaladiisa caafimaad oo asaga naftiisana loo badbaadiyo nafta ummadda kalena loo badbaadiyo oo dhammaan looga taxadiro dhammaan shacabka ku nool wadanka Nepal asmadiisa hadda qaas ahaan Kathmandu dadka ku nool oo ugu yaraan ilaa 5 milyan dad ku dhawaa in naftooda aad iyo aad ay dawladdu ay u ilaaliso wana isku daydo inay xaaladan ay tahay mid ay gacanta ay ku qabato oo ay inta badan u fooljignaan aad u sareysa ay ka gashay dawladda wadanka waa mahadsan tahay adiga iyo bulshada Soomaaliyeed dalkaas ku noolna waxaan idin rajeynayaa inaad badbaadaan